maanta waxaan idinla wadaagayaa mid ka mid ah buugaagta ugu qiimo badan ee aan akhriyey. waa buug si weyn u bedelay fikirka aan ka haystay dhinacyo badan oo ka mid ah nolosha, ha ahaato guusha, ha ahaato horumarka iyo go'aanada aynu qaadanno maalin kasta. buugaagta laga qoro horumarinta shakhsiyadda iyo guud ahaan isbeddelka waa kuwo aad u kala duwan, mid walbana wuxuu leeyahay ahmiyadiisa gaarka ah. buugaagta qaar waxay bixiyaan macluumaad, halka ay jiraan qaar kale oo gebi ahaanba bedela sida uu shakhsigu u fikirayo. buuggan wuxuu ka mid yahay mid ka bedela fikirka qofka si positive ah. inkastoo la qoray sannado badan ka hor, haddana waa mid si weyn ula jaanqaadi nolosha maanta. casharadiisu waa kuwo fudud, wax ku ool ah, isla markaana lagu tilmaami karo xeerar aan duugoobin. fariinta ugu weyn ee buuggan ayaa ah in guusha aanan lagu hanan nasiib, balse ay tahay natiijada go'aanada yaryar ee aad maalin kasta qaadato. buuggan waxaa la yidhaa The 5 Major Pieces to the Life Puzzle, taasi oo la macno ah 5 qaybood oo ugu muhiimsan hal xiraalaha nolosha. waxaa qoray nin lagu magacaabo Jim Rohn. waxaa la daabacay sanadkii 1991, wuxuuna sheegayaa in nolosha qofka ay la mid tahay hal xiraale puzzle. haddii aad si saxa isugu geyso 5 qaybood ee ugu muhiimsan, guushu waxay noqonaysaa natiijo dabiici ah. 5 qaybood waxay kala yihiin: 1. falsafadda nololeed; 2. aragtida nolosha; 3. ficilka; 4. natiijada; 5. hab nololeedka. haddaba aynu mid walba si gaara isu dultaagno. qodobka 1 waa falsafadda, oo ah aasaaska nolosha. Jim Rohn wuxuu leeyahay wax kasta waxay ka bilaabmaan falsafadda aad nolosha ka aaminsan tahay. falsafaddu waa fikradaha iyo caqiidooyinka hagaya go'aanadaada. waxay saameeyaan sida aad u aragto guud ahaan nolosha, ha ahaato shaqada, lacagta, qoyska, waxbarashada, guusha iyo guuldarrada lafteeda. dad badan waxay rabaan inay beddelaan noloshooda, laakiin ma beddelaan hab fikirkooda. waxay raadiyaan shaqo cusub ama meel cusub ayay u guuraan, iyagoo aanan waxba ka beddelin hab fikirkii dhaliyey halka ay maanta ka taagan yihiin nolosha. Jim Rohn wuxuu leeyahay haddii fikirkaagu isbeddelo, go'aanadaaduna way hagaagayaan, noloshaaduna way isbeddeli doontaa. qodobkan 1 wuxuu ina farayaa haddii aad rabto nolol wanaagsan, waa inaad ugu horrayn hab fikirkaaga hagaajisaa. inaad hab fikirkaaga dib u eegtid, isla markaana aad isweydiiso afkaartaada shakhsiyeed ee kaaga baahan inaad beddesho. fikirka wanaagsan wuxuu ka yimaadaa akhrinta buugaagta wanaagsan, barashada dadka xikmadda leh, ka faa'iidaysiga waayo aragnimada, dib u sixid, iyo inaad mar walba diyaar u noqoto waxbarasho. waxaa la yidhi rahu waxuu arkay harba u weyn. adiguna haddii aadan aaminsanayn in ay jirto nolol ka wanaagsan tan aad ku nooshahay, suurtagal ma noqonaysa inaad wax ka beddesho. maxaa yeelay guul walba oo la hiigsado wuxuu ka bilowdaa fikir, ama in uu qofku sawirto sida ay wax noqon doonaan marka uu gaaro libinta uu hiigsan. taasina waxay qayb ka qaadan doontaa dadaalka shakhsiga. haddii aynu aragtidan ka eegno dhanka islaamka, alle subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanku ku sheegay inuusan beddelin xaaladda dadka ilaa ay iyagu isbeddelaan. fikirka shakhsiga muslimka ah waa inuu ku dhisnaadaa qur-aanka iyo sunnada, ee uusan keliya ku ekaan guul adduun. qodobka 2, aragtida nolosha, sida aad wax u aragto. Jim Rohn wuxuu leeyahay noloshaada ma go'aamiyaan duruufaha oo keliya, ee sidoo kale waxaa go'aamiya sida aad uga falceliso duruufahaas. 2 qof ayaa la kulmi kara dhibaato isku mid ah, mid wuu ka gudbaa, midna wuu quustaa. farqiga u dhexeeya 2 qof waa aragtidooda. dadka guulaysta waxay leeyihiin dabeecad ku lamaan mahadnaq, mas-uuliyad, rajo wanaagsan, adkaysi. qodobkan 2 wuxuu ina farayaa mar walba ma xakamayn karno waxaan ugu dhacaya, laakiin mar walba waynu dooran karnaa sida aynu uga jawaabayna duruufahaas. dadka guulaysta dhibaatada kama cararaan, balse waxay wajahaan iyagoo leh rajasan. aragtida islaamka wuxuu ina barayaa tawakul, ku kalsoonaanta alle, sabir oo ah dulqaadka, shukri, mahadnaq, xusnu dambillaah, in alle laga fisho wanaag. qof kale 4 sifo wuxuu yeeshaa xoog nafsiyad oo ka qota dheer rajada caadiga ah. qodobka 3,
ficilka. aqoonta keligeed wax ma beddesho. jim rohan wuxuuna leeyahay buug akhrintiisu noloshaada ma beddesho, muxaadaro dhegaysigeedu noloshaada ma beddesho. aqoontu keliya waxba ma qabato, waxa wax beddela waa ficilka. wuxuu sidoo kale leeyahay anshuxu wuxuu ka qiimo badan yahay dhiirigelinta. dadka guulaysta waxay qabtaan waxa dadka kale dib u dhigaan. ficilada yaryar ee joogtada ahi waxay dhisaan guulo waaweyn. qodobkan saddexaad wuxuu ina farayaa dad badan waxay moodaan in waxbarashadu ay la mid tahay horumar. run ahaantii horumarku wuxuu yimaadaa marka aad dhaqan geliso waxaad baratay. riyooyin badan waxay ku dhintaan farqiga u dhexeeya waan ogahay iyo waan sameeyey. dhanka kale islaamku wuxuu si weyn u qiimeeyaa camalka. nebigu naxariis iyo nabadgelye korkiisa ha ahaatee wuxuu sheegay in alle ugu jecel yahay camalka joogtada ah xitaa haddii uu yar yahay. guushu waxay ka timaadaa ficil joogto ah oo daacadnimo ku dheehan tahay. qodobka afraad, natiijadu waa muraayadda xaqiiqada. jim rohan wuxuu leeyahay natiijooyinku been ma sheegaan. cudurdaarka iyo marmarsiinyada waad ku qancin kartaa naftaada, balse natiijada halka aad ka taagan tahay nolosha ayaa xaqiiqada rasmiga ah. haddii aadan ku qanacsanayn natiijadaada iyo halka aad nolosha ka taagan tahay, maanta waa inaad dib u eegtaa fikirkaaga, aragtidaada iyo ficiladaada. natiijada ku soo baxda waxay ku tusi waxa kaaga baahan inaad hagaajiso. qodobkan afraad wuxuu ina farayaa beddelkii aad niyadjab ka qaadi lahayd guuldarrooyinka ka dhigo cashir oo isweydii maxaa dhacay, maxaan hagaajin karaa, maxaan ka bartay guuldarradaas. guuldarro kasto waxay xambaarsan tahay cashir. islaamku wuxuu ina barayaa isla xisaabtan. camal kasta wuxuu leeyahay natiijo adduun iyo mid aakharo. goor kastana alle tala saaro. qodobka shanaad waa habnololeedka, waa abaalmarinta ugu dambaysa. jim rohan wuxuu leeyahay lacagta keliya guul ma noqoto. guusha dhabta ah waa tayada nolosha aad dhistay. nolol wanaagsan waxaa ka mid ah qoys baraaro ah, caafimaad wanaagsan, dhaqaale xasiloon, horumar shakhsiyeed, deganaansho maskaxeed iyo xorriyad. habnololeedku waa natiijada ka dhalan afartii qodob ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kale ah falsafadda nololeed, aragtida nolosha, ficilka iyo natiijada. nolol dheelitiran ayaa ka qiimo badan maal badan oo aan farxad lahayn. aragtida islaamka ee kaga aadan qodobkan ayaa ah islaamku wuxuu bixiyaa qeexidda ugu dheelitiran ee guusha. shakhsiga muslimka ah wuxuu u shaqaystaa guusha adduun oo ay ka mid tahay gudashada waajibaadka nololeed, isagoo hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay guusha aakhiro. guusha dhabta ah laguma cabbiro guryo waaweyn iyo hanti badan. waxaa lagu cabbiraa u dhowaanshaha alle, cilmi faa'iide leh, akhlaaq wanaagsan, qoys adag, u adeegidda bulshada, u diyaargarowda maalinta qiyaame. dabuubta oo kooban, buuggan 5 qaybood ee ugu muhiimsan halxiraalaha nolosha ma aha buug dhiirigelin oo keliya. waa buug ku baraya sida aad mas-uul uga noqon lahayd noloshaada. jim rohan wuxuu ina barayaa 5 arrimood oo aad u fudud. hagaaji fikirkaaga, sax aragtidaada, ficil joogto ah samee, wax ka bara natiijooyinkaaga, dhis nolol macno leh. marka laga eego dhinaca islaamka, qodobadan waxay waafaqsan yihiin qur'aanka iyo sunnada. farqiga ugu weyn ayaa ah in islaamku uusan guusha ku koobayn maal iyo mansab. guusha dhabtaahi waa inaad ku noolaato adigoo alle adeecaya, kana shaqaynaya guushaada adduuniya tan aakhira. haddii aad rabti inaad si dhab ah ugu hormarisa naftaada, waxaan kugula talinayaa inaad akhriso buuggan. si tartiib ah u akhri, qodob kasta ka fikir, kadibna ku dabaqo noloshaada adigoo dhanka kale ku salaynaya tilmaamaha qur'aanka iyo sunnada. guushu ma bilaabato maalinta aad lacag hesho, waxay bilaabataa maalinta aad beddesho fikirkaaga, ficilkaaga iyo xiriirka alle. tixraaca buugga waxaan kuu dhigayaa qaybta kommentiga iyo descriptionka. fikirkaaga nagula wadaag barta kommentiga. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe garee channelka oo ka mid noqo bulshada ku xiran boggayaga. mahadsanid.